قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. reer banu Israa'iil waxay u soo dhawaadeen abaartii safarkooda waxana ay kambalka u yimaadeen Orshalin oo ahayd magaalada imika Qudus la yiraahdo. markii ay Falastiin ku soo dhawaadeen waxa uu Muuse diray 12 nin oo soo basaastay magaalada soona indheeyo war sugan ka soo qaada waxana ay 12 kaas nin kala matalayeen 12 reer ay ka kooban yihiin Yuhuudu. nimankii markii ay soo noqdeen waxa ay sheegeen in ay meesha nimco taalo waxa ay noqdeen laba qaybood qayb ka kooban 10 nin oo iyagu sheegtay in meesha ay degan yihiin ummad xoog waaweyn kuwaas oo aan dagaal la gali karin waxayna ku booriyeen 10koodii jilib in ay diidaan dagaalka Muusena ku gacan saaraan. qaybta labaad waxay ka koobnaayeen 2 nin oo midkood uu ahaa Yuusha bin Nuun ka kalena Kaalib bin Yufna loo oran jiray waxana ay sheegeen labada nini in dagaal la gali karo iimaanna laga guuleysanayo labadoodii jilibna waxay ku booriyeen in ay jihaadka galaan dagaalkana isku diyaariyaan dhigaha ayaa laga furaysay. waxa uu Nabi Muuse reer banu Israa'iil ku amray in ay isdiyaariyaan oo magaalada ay dagaal ku furtaan laakiin weynagii isla soo aragnay reer banu Israa'iil gumaysigii in ay fuleynimo ka dhaxleen way baqeen oo lamaba ay gabanina waxa ay Muuse ku yiraahdeen meesha waxa degan Muuse qoom naga xoog waaweyn ee gali mayno ilaa ay iyagu ka baxaan markaas ay iyagu ka baxaan ayuun baanu anaguna galeynaa. Nabi Muuse kama uu daalin ee waxa uu ku waaniyay jihaadkii waxana iyana la tashkiilinayay oo baqa jihaadka la waday Yuusha bin Nuun iyo ninkii kale ee Saalix ahaa. Nabiyullaahi Muuse markii uu markaas ku booriyay jihaadka ayay aakhirkii ku yiraahdeen Muuse anagu halkan ayaanu sii fadhiyeynaayo orod oo adiga iyo Ilaahagu soo dagaalama xataa ma aysan oran ordo adiga iyo Ilaahagu soo dagaalama waxana ay taasina tusaysaa sidii uu u madoobaa qalbigoodu. markii ay xaaladdu halka maraysay ayaa uu niyad jabay Nabi Muuse waxa uu Ilaahay u sheegay in uu naftiisa iyo tawalaalkii oo kaliya uu maamuli karo waxana uu ka baryay in uu soo kala furto isaga iyo qoomkiisa. Ilaahayna waa uu aqbalay ducadii oo waxa uu ku ciqaabay reer banu Israa'iil 40 sano oo jahwareer ah taas oo ay si bilaan macno ah isaga noolaayeen oo ay si bilo ujeeda iskaga socdeen waxana ay muddadaas oo dhan dhex wareegayeen saxaraha Siinay waxana ay noloshoodu ahay sida goobada oo kale ama giraanta oo kale ka bilaamaysa halkay ku dhamaatay kuna dhamaanaysa halkii ay ka bilaabantay. waxana la agdajiyay buurta Duur oo maalin kasta inta ay iska dhaqaaqaan oo socdaan ay haddana habeennimadii arki jireen iyaga oo buurtii ag jooga. culimada taariikhda waxa ay sheegaan in dhammaan dadkii lagu bilaabay 40 sano ee jahwareerku ay dhinteen muddadii lagu guda jiray tiiha marka laga reebo Yuusha bin Nuun iyo ninkii kale ee Saalix ahaa. 40 sanana waxa ay dhamaadeen iyaga oo ubadkoodii ay nool yihiin soona baxeen jiil aan la gumaysan oo dardar iyo carcar qaba sidoo kalena ay madheen dadkii la soo gumaysan jiray. reer banu Israa'iil waxay Muuse ugu cawdeen in ay ooman yihiin kadibna waxa uu u baryay Eebe Ilaahayna waxa uu siiyay dhagax leh 12 dalool dhanacii kasana kula 3 dalool oo ay ka kala cabaan 12koodii jilib dhagaxan oo meel kasta oo ay u guuraanba ay ka helayeen isagii oo kaga soo horeeyay oo si yaala. in yar kadibna waxa ay Muuse u sheegeen in uu keenay saxare oo ay gaajo ugu dhimanayaan markaas ayuu Muuse Eebe baryay Ilaahayna samada uga soo rogay cunto bisil oo waliba ah cuntooyinka ugu qaalisan kuwaas oo kala ah hilib shimbireed oo duban iyo manna oo ah cunto qiimo badan taas oo ka cad caanaha kana macaan malabka. mar saddexaad ayay Muuse u yimaadeen iyaga oo ka cabanaya kuleylka cadaalada iyo waliba madowga habeenkii kadibna Eebe ayuu u baryay waxana uu Ilaahay maalintii u hadheen jiray daruuro waaweyn oo ka qariya fallaaraha cadaalada habeenkiina waxa uu siiyay tiir u ifa oo u ilaayo dhulka. wax yar kadibna waxa ay uga cawdeen Muuse in ay aradan yihiin oo ay maryahoodii Masar kaga yimaadeen isna si lamid ah sidii hore ayuu Eebe u baryay waxana uu Ilaahay siiyay maryo aan ka usogooben kana duugooben sidoo kalena la koraayo oo aan marna ka dheeraanayn ama ka gaabanayn. reer banu Israa'iil ma aysan xamilin nimcadii oo muddo yar kadib waxa ay Muuse u sheegeen in ay ka daaleen labadan cunto oo kaliya waxana ay ku doodeen in ay u xiisoodeen Masar ayna doonayaan cuntadii ay ku cuni jireen waxana ay taasi Muuse ku riday yaab iyo amakaag. aakhirkana waxa loo ogolaaday in ay dhulka beertaan. waxa kale oo jirtay kacdoon Muuse ka dhan ahaa
oo ay ku doodayeen in aanay dagaal geli karin saxarahana aanay kusii noolaan karin. sidaa awgeed waxa ay doonayeen ama ay u mudaharaadayeen in ay dib ugu laabtaan Masar iyo gumaysigii Faraacinada. Nabi Muuse waxa uu isugu yeedhay reer banu Israa'iil waxana uu sheegay in uu Ilaahay la soo hadlayo oo uu maqnaan doono 30 cisho waxana uu kaga sii tagay Nabi Haaruun. markii uu tagay Muuse buurtii uu Ilaahay kula hadli jiray ayaa uu soomay 30 cisho oo habeen iyo maalinba leh. markii uu 30 cisho soonaa ayaa isbedeshay hawadii afkiisu oo sidan qofka sooman lagu yaqaano oo kale ayaa uu noqday. waxa uu ka xishooday Muuse in uu Eebba la hadlo isagoo caynkaas ah. kadibna waxa uu cunay dhir si uu afkiisa u udgoonaysiiyo. Ilaahay ayaa Muuse weydiiyay sababta uu afuray waxana uu Muuse u sheegay ujeedadii uu afuray. kadibna Eebba ayaa ku yiri miyaadan Muuse ogeyn qofka sooman hawada afkiisa ka soo baxaysa in ay agteeda ka udgoon iyo caraf badan tahay miskiga iyo cadarka. waxana uu Ilaahay ku amray inuu 10 cisho oo dambe soo soomo. sidaas ayaa uu Muuse ku dhameystay 40 cisho. culimada qaar ayaa sheegay in ay ahaayeen 40 maalmood 30 dilqacda iyo 10 baraysan ee Dilxija. 30 maalmood ee uu la ballamay Muuse reer banu Israa'iil markii ay dhamaatay isagoo aan wali u iman ayay reer banu Israa'iil su'aalo badan oo shakil ah weydiiyeen Nabi Haaruun. waxa la sheegay nin kamid ahaa reer banu Israa'iil oo Saamiri loo oran jiray in uu isugu yeedhay dadkii oo inta uu ka ururiyay dahabkii iyo macdantii ay la soo baxsadeen ayaa uu ka sameeyay dibi. kadibna waxa uu ku shubay ciidii uu ka soo qaaday raadkii faraskii uu watay Jibriil maalintii la halaagayay Fircawn. kadibna waxa uu ka sameeyay dibigaas oo dinaahiyay. culimada qaar kamid ah ayaa iyana qisadaasi kale u wariyay oo waxa ay yiraahdeen reer banu Israa'iil aad ayay u jeclaayeen Haaruun sababtoo ah waxa uu ahaa nin naxariis badan oo ka dabacsan Muuse. waxa ay sheegaan in uu maalin Haaruun u qudbeeyay oo uu ku amray reer banu Israa'iil in ay soo ururiyaan dahabkii iyo macdantii ay kala soo baxsadeen masaarida. markii ay u keeneenna inta uu hog u qoday oo ku guray ayaa uu ku gubay. inkastoo aan xaqiiqo ahayn waxa jirta kuwa yiraahda ninka loo oran jiray Saamiri ma aanu ahayn reer banu Israa'iil ee waxa uu ahaa nin asal ahaan ka soo jeeday qolo caabudalooda kaas oo reer banu Israa'iil soo raacay markii ay badda ka soo talaabayeen. reer banu Israa'iil markii ay badda ka soo talaabayeen waxa horkacayay Jibriil oo watay faras. waxana uu Saamiri arkay faraska Jibriil oo meesha uu ku istaagaba ay dhiri ka soo baxaysay. isna inta uu soo gurtay raadkiisii ayaa uu soo qaatay. Haaruun ayaa arkay ciidda uu ninkani sito. kadibna waxa uu ku amray inuu tuuro ciidda. waxana uu Saamiri ku yiri Haaruun oo waan tuurayaaye waxaad Ilaahay iga baridaa in marka aan tuuro uu iga dhigo sida aan doonayo. Haaruun Eebbe ayaa uu bariyay. waxa uu Saamiri soo maray dahabkii iyo macdantii uu Haaruun gubay waxana uu ka sameeyay dibi. markii uu dhameeyayna waxa uu ku tuuray oo ku saydhiyay ciidii uu ka soo qaaday raadkii Jibriil. markaas ayaa uu dibigii dinaahiyay oo isagoo bilaa naf ah iyo bilaa jiir ah ayuu u ciyay sida dibyada oo kale. culimada qaar ayaa sheegay codka uu dibigu bixinayay in ay sameynaysay leedhii ka soo galaysay dabada kana baxaysay afka sida siiriga oo kale. dadkii reer banu Israa'iil waxay ku soo xoobeen Saamiri oo markii ay weydiiyeen waxa uu sameeyay ayuu isna ku yiri waxaan waa Ilaaheeni iyo Ilaahi Nabi Muuse. Muusena halkan ayaa uu Ilaahiisi ku sii ilaaway. reer banu Israa'iil waxay noqdeen 3 qolo kuwa rumaystay oo caabuday Dibigii iyo qaar yiri annagu waxbaanu hubsanaynaa oo hadii uu bahalkani noqdo Ilaahi uu Muuse caabudi jiray oo uu inagu dhixilaaway waanu caabudi doonaa. hadii uu noqon waayana Muuse aanu daacad u nahay. waxa jirta koox saddexaad oo iyagu diiday in ay caabudaan Dibiga kuna tilmaamtay in uu yahay shay baadil ah. Nabi Muuse Ilaahay ayay wada hadleen waxana uu macaansaday Muuse hadalka iyo kalaamka Rabbi. kadibna waxa uu ku yiri Rabbiyow itus wajigaaga aan arko. Ilaahayna waxa uu ku yiri Muuse i arki maysid Muusow waxaad eegtaa buurtaas iyada ayaa aan istusayaa. hadii ay xamisho weynideeda iyo quruxda nuurkayga adna wada arki kartaa. Ilaahay markii uu istusay buurtii ayay buurtii xamili weeday quruxdii iyo wacnaantii Ilaahay. kadibna inta ay qaraxday ayay dhagax u duushay oo ay baabaaday. markaas ayaa uu suuxay Nabi Muuse. kolkii uu soo miirsadayna waxa uu Ilaahay ka baryay in uu Eebbe u dambi dhaafo. muddada 40 cisho ahayd markii uu dhameystiray Muusena uu Ilaahay la hadlay ayaa uu Eebbe siiyay kitaabkii Tawraadka ahaa oo ku qoran loox. kitaabkaas oo ah mid uu Ilaahay isagu gacantiisa ku qoray. waxana uu Eebbe u sheegay ficilka ay qoomkiisu sameeyeen. kadibna Muuse oo careysan ayaa u yimi qoomkiisii oo ugu horeynba markii uu arkay dibiga ay caabudayaan ayaa uu aad u xanaaqay. waxa uu jiiday Haaruun garhka oo ku canaantay inuu gabay biyadiisii sida oo kalena
dhulka ayuu ku tuuray looxii uu ku qornaa kitaabka towraadka ahi. nebi haaruun dadaal kuma uusan yarayn oo markasta waa uu wacdihi jiray reer banu israa'iil, waxaana uu u sheegi jiray in ay shirki tahay dibigan ay caabudayaan. waxa uu muuse u yimi saamiri oo weydiiyey waxa ku kaliifay ficilkan uu sameeyey. saamirina waxa uu u sheegay maalintii fircawn la halaagayay in uu arkayo wax aanay dadka kale arkayn oo ahaa jibriil oo wata faras, kadibna uu soo qaaday ciidii raadkiisa ahayd, sidaasna uu dibiga ku sameeyey. muusena waxa uu ku amray in aanay cidi taaban isna la taaban, maadaama uu taabtay wax aan la taaban. waxaana saamiri ku dhacay xanuun xun oo u diiday in ay dadku taabtaan, kadibna waxaa lagaga tegay saxaraha oo uu ku dhintay. waxa kale oo uu muuse gubay dibigii oo inta uu soo qaaday dambaskiisii ayaa uu ku shubay baddii, waxaana uu reer banu israa'iil ku amray in ay badda ka cabbaan, dhammaantoodna waa ay ka cabbeen. markii ay ka cabbeen baddii, dadka intii caabuday dibigu waxa ay bishmahoodii ama dibnahoodii ay noqdeen casaan, taas oo uu ilaahay ku fadaxadeynayay kuna ceebeynayay ficilka xumaa ay sameeyeen si loo garto. waxa kale oo uu ilaahay u furay albaabkii toobadooduse waxa ay ahayd in ay isdilaan oo kii dibiga aan caabudin uu dilo kii caabuday dibiga. culimada taariikhda qaar ka mid ah waxa ay sheegeen in subax markii ay reer banu israa'iil waa bariisteen, nin waliba uu qaatay seeftiisii, kadibna ay dileen dadkii caabuday dibiga, iyada oo aanu qofna u naxayn kii xigay amaba qofkii ehelkiisa ahaa. waxaana subaxdaas oo keliya la dilay 3,000 oo qof. intaas kadib waxa uu nebi muuse kaxeeyey 70 nin oo ka mid ahaa culimadii reer banu israa'iil. ujeedadii uu kaxeeyeyna waxa ay ahayd in ay ilaahay cafis ka soo dalbadaan, waxaana ay yimaadeen buurtii uu muuse ilaahay kula hadli jiray iyaga oo soo qubaystay oo isu soo daahiriyey. muusena waxa uu kor u fulay buurtii. waxoogaa kadibna waxaa soo degtay daruur aada u nuuraysa oo qarisay buurtii oo dhan, waxaana isla oogmay iftiin iyo nuur aada u qurux badan. kadibna ilaahay ayaa muuse la hadlay. 70kii nin ee reer banu israa'iilna waa ay maqlayeen codka ama hadalka ilaahay, laakiin nasiib darro ma aysan fahmayn waxa uu ilaahay muuse u sheegayo. kadibna markii uu muuse kusoo noqday ayay ku yidhaahdeen, muuse kuma rumaynayno ilaa aanu ilaahay aragno. kadibna waxaa kusoo degtay ciqaab ilaahay oo dhammaantood waa ay dhinteen. si ay isugu cibro qaataanna marba midkood ayaa dhimanayay iyaga oo inta kalena ay arkayso. 70 nin ee dhintay waxa ay ahaayeen kuwii ugu khayrka badnaa reer banu israa'iil, oo markii uu muuse soo kaxaynayay waxa uu soo xulayay ninba ninkii uu ka aqoonta badnaa, waxaana ay ahaayeen shuyuukhdii iyo caalimadii reer banu israa'iil. sidaa awgeed ayaa uu eebbe aada u baryey oo ka codsaday in aanu ilaahay ku halaagin dembigii ay faleen maangaabkii dibiga caabuday. barye kadibna eebbe waa uu soo nooleeyey si ay aayad iyo mucjisyo ugu noqdaan reer banu israa'iil. muuse waxa uu isku dayay inuu towraadkii oo ahaa kitaabkii uu ilaahay usoo dhiibay baro reer banu israa'iil, waase ay diideen. kadibna ilaahay ayaa inta uu soo rujiyey buurtii duur ee ay ag deganaayeen ayuu dul keenay oo u hadheeyay tabta daruurta ama dallada oo kale, si ay u arkaan awoodda ilaahay una cibro qaataan. waxa kale oo ay ahaayeen duul shar badan oo markasta oo la xasuusiyo nimcooyinkii uu ilaahay siiyey iyo siduu uga soo badbaadiyey fircawn, waxa ay ku doodi jireen in ay yihiin shacabkii ilaahay iyo ubadkiisii, waxaana ay odhan jireen xaq ayaa nagu leenahay inuuna badbaadiyo, oo taasi waa xuquuqdayada.